golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay qaadida cunaqabatayntii lagu soo rogay waddanka Eritrea 9 sannadood ka hor. Dowladda Eritrea ayaa wajahaysay cunaqabatayn dhanka hubka, xanibaad dhanka hantida ah iyo weliba sidoo kale mamnuucidda dhanka safarada. Tan iyo 2009 markii lagu soo eedeeyay inay taageerto dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka howlgala waddanka Soomaaliya. qaadida cunaqabatayntii saarneyd Eritrea ayaa ku soo beegmaysa xilli uu soo wanaagsanaanayo xiriirka u dhaxeeya dalka ay dariska yihiin ee Itoobiya. dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa ka mid ahaa wadamadii ku baaqay in la qaado cunaqabatayntii saarneyd waddanka Eritrea. danjiraha boqortooyada Ingiriiska u fadhiya qaramada midoobay waxa ay tiri The agreement to lift sanctions on Eritrea recognizes the improvements in regional peace and security and the positive steps Eritrea has taken to meet the demands of the heshiisku waxa uu ka qaadayaa cunaqabataynta waddanka Eritrea waana garashada horumarka ay ka sameeyeen xagga nabadda iyo dhanka wanaagsan ee dawladda. sidoo kale waa sax in horumarka noocan oo kale ah loo tixgeliyo. waanu sii wadi doonaa wadahadalka u dhaxeeya wadamada Djibouti iyo Eritrea. that we continue to urge dialogue between Eritrea and Djibouti. danjiraha dawladda Itoobiya ee qaramada midoobay waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaanu bogaadinaynaa qaraarka maanta. horusocodka Itoobiya iyo Eritrea waa mid sii socda isla markaana keenaya cawaaqib ballaaran. sidoo kale waa u muhiim isbeddelka siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika iyo dunida inteeda kaleba. and is significantly changing the political landscape of the Horn of Africa and beyond. United Nations sanction regime with the widest mandate. Not only the sanction violate the Somalis' unity, dinjiraha dawladda Soomaaliya ee qaramada midoobay oo halkaasi ka hadlay waxa isna hadalladiisii ka mid ahaa cunaqabataynta Soomaaliya waa tii ugu waqtiga dheereed ee qaramada midoobay muddadeeda. ma aha mid xadgudub ku ah midnimada Soomaaliya oo kaliya, sidoo kale kuma xidhna siyaasadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo dhiso ciidamada qaranka Soomaaliyeed. dinjiraha dawladda Eritrea ee qaramada midoobay oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa Eritreans will not look backwards. Eritreaanku dib u socon maayaan. waxaanu casharo ka soo barannay 20kii sano ee la soo dhaafay taariikhda. waxaanu abuuraynaa qaran nabadgelyo iyo barwaaqo soorana. safiirka dawladda waddanka Djibouti ee qaramada midoobay oo isna dhinaciisa hadlay ayaa waxa uu yidhi dawladda Djibouti waxay sare u qaadaysaa damaceeda golahu ka warhayo ee helitaanka qaraar joogto ah oo nabadeed oo ku saabsan dhulka la haysto iyo kala duwanaanshaha iyadoo loo eegayo shuruucda caalamiga. dawladda waddanka Djibouti waxa ay soo dhaweysay go'aanka qaramada midoobay kaga qaaday dawladda waddanka Eritrea cunaqabatayntii saarneyd. sidoo kale jamhuuriyadda Djibouti waxa ay bogaadisay qaadashada go'aankaasi. waxa ayna dawladdaasi Djibouti sheegtay inay diyaar u tahay wax kasta oo lagu soo afjarayo khilaafka labada dhinac waa Djibouti iyo Eritrea. dawladda Djibouti waxay sidoo kale u mahad celisay qaramada midoobay waxa ayna intaasi ku dartay in ay ka shaqaynayso xal u helidda labada dal sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay jamhuuriyadda Djibouti. dawladda waddanka Eritrea ayaa loogu baaqay inay dib u celiyaan ciidamadii u dhashay waddanka Djibouti ee lagu hayay Eritrea intii ay socdeen dagaalkii labadaasi dal u dhaxeeyay. dawladaha Djibouti iyo Eritrea ayaa loogu baaqay inay si waafaqsan xeerka caalamiga ah ay u dhameystaan arrimahooda. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.